ayday maalinta beriya 10ka bisha Disembar ku aasaysan tahay maalinta dadweynuhu aqoonsaday inay tahay maalinta caalamiga ee xuquuqda aadamaha isla markaana caalamka intiisa badan si weyn looga dabaaldego loogana xuska maalintaasi laguna soo bandhigo tacdiyada ka dhanka xuquuqda aadamaha ee laga soo ururiyay wadamo kala duwan oo ku yaala caalamka intiisa badan. Magaalada Hargeysa waxay ka mid tahay magaalooyinka si weyn looga xuso maalintan si gaar ahaaneedna sida caadada u ah xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Somaliland waxay maalin ka hor maalintaasi gudaha Hargeysa ku soo bandhigaan tacdiyada ka dhanka xuquuqda aadamaha ee ka dhaca gudaha dalka. halkani waa mid ka mid ah howlka ka dhacbinaysan hotelka Mansour oo si weyn ay u soo buuxdaafiyeen xubnihiisa isugu jira horjoogayaasha xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Somaliland, mas'uuliyiinta ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, qareeno ka howlgala maxkamadaha dalka iyo sidoo kale mas'uuliyiin matalay hay'adaha caalamiga inta badan si weyn ugu dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqul aadamaha wada shaqayn dhowna ay leeyihiin xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Somaliland, iyaguna dhammaantood ahaa kuwa dhuganay dhawaqa xog ururinta ay soo gudbinayaan mas'uuliyiinta xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan. Guleed Axmed Jaamac Guleed Dafac waa gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Somaliland, waxaanu halkaa ku soo bandhigay tacdiyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka isla markaana ay soo ururiyeen. Barbilow waxa uu si toos ah u dul istaagaya tacdiyada ka dhanka suxufiyiinta isagoo soo bandhigay tirada suxufiyiinta xabsiga si sharci darro loogu taxaabay iyo sidoo kale dadka cabira dareenkooda oo si gaar ahaaneed ay u soo qaateen dadkii la xidhiidhay intii lagu guda jiray hirgelinta heshiiska u dhexeeyay Somaliland iyo sidoo kale shirkadda DP World ee horumarinta marsada weyn ee caalamiga dekada Berbera. Sidii caadada ahayd sanadihii u dambeeyay tira ahaan sii kordhay iyadoo tirada saxaafadda la xidhiidhay aan sanadkan diiwaan gelinay ay yihiin 28 qof. 28 qof waxay isugu jiraan qaar xidhan saacado kooban aad u kooban iyo qaar xidhan muddo saacado ka badan. Qofka u badnaana wuxuu xidhnaa bil intooda badan waxay xidhnaan maalin ama dhowr saacadood. haddii la barbar dhigo sanadkii hore waxaa la xidhay 19 suxufi. sanad xisaabeedka aanu tirinaa wuxuu ka bilaabmaa Disembar 10keeda, sidaas daraadeed 2 qof oo ka mid ah dadka xisaabtan ku jira waxaa la xidhay Disembar sanadkii 2015. wadarta guud ee xariga sanadkan dhacay waa 34 jeer, taasoo macnaheedu yahay suxufiyiinta qaarkood in la xidhay wax hal mar ka badan. waxayna u badan yihiin suxufiyiinta mararka badan la xidhay suxufiyiinta ku xidhan deegaan magaalada Berbera. sidoo kale waxaa sanadkan loo xidhay arrimo la xiriira dekedda Berbera dad badan ay ka mid yihiin dhalinyaro afar ah oo ka mid ah Maxamed Sidiq Dhamme oo ah nin ka tirsan mucaaradka. waxaa ka mid ah Suldaan Cali Saleebaan iyo dad badan oo mudaharaadyo dartood looga soo xidhay gobolka Saaxil. Guleed Dafac waxa uu sidoo kale dul istaagay in gudaha dalka madnuuc ka tahay in laga hirgeliyo idaacadaha madaxa bannaan si ay u gaadhaan bulshada reer guraaga. waxay muujinayaan in Somaliland sanadkan cadaadiska lagu hayo dadka critical-ka ah ee dawladda ka soo horjeeda oo aad u badnaa. mana aha wax wanaag muujinaya tijaah aan habboonayn oo Somaliland u socoto marka laga hadlayo xorriyadda saxaafadda oo ah qodob dastuuriya oo dastuurka Somaliland dabara qaado. Sidaa waqtiga Somaliland waxa ka mamnuuca idaacadaha madaxa bannaan. taasina waxay dhibaato weyn ku tahay dadka reer guraaga iyo dadka aan wax baran oo aan macquul u ahayn inay jaraa'idka website-yada iyo TV-yada ay akhristaan. Garaacida maxaabiista ay warbixintiisa ku soo qaatay Guleed Dafac isagoo tusaale u soo qaatay mid ka mid ah saldhigyada Hargeysa oo bilihii aynu ka soo gudubnay lagu garaacay maxbuus. eedhigooda ayuu ka deeriyay isagoo tilmaamay inay tahay mid ka baxsan arrimaha xuquuqul aadamaha. waxaanu diiwaan gelinay garaacis loo geystay dad ku xidhan saldhigyada booliiska oo qaarkood dhaawac halis loo geystay. tusaale ahaan saldhigga Koonfur dhalinyaro ku xidhnaa oo dhaawac looga geystay qoorta ay kaliftay in ilaa Itoobiya loo qaado. saldhigga dhexdiisa lagu garaacay askarigii garaacayna aan booliisku qabanin wax dacwadana ku soo oogay. nolosha saldhigyada booliiska Somaliland waa kuwa xun oo aan lahayn cunto. qofka marka la soo xidho dawladda waajib ku tahay inay cunto siiso, laakiin saldhigyadeena cunto ma leh. qofka aan ehel lahayn waxay ku kalifaysaa inaan waxba cunin ama dadka la soo xidho oo la cuno. caasimadda Hargeysa dadku ku badanayaan siba dadka ka imanaya gobollada fogfogna waxaa dunuubta gelaya dad badan oo dhalinyaro ah oo la gelaya dunuub la xiriira arrimaha hantida oo kolka marka la xidho hantida waxa ka jeeda burcadnimo ama wax la mid ah aan cunto ku helin, caafimaad ma leh, waana buuq waa xadaaf. meelaha lagu xidho waa meel bini'aadamnimada ka xun waxaana ka mid ah meelaha ugu daran saldhigga magaalada Hargeysa oo aan u aragno inuu yahay meel aan bini'aadan lagu hayn karin, iska daa bini'aadan meel aan xoolo lagu haysan karin inuu yahay qaab u samaysan. booliiska iyo xilaalinta ayuu si gaar ahaaneed u xusay inay yihiin mid ka mid ah caqabadaha hortaagan in bulshadu ay helaan xuquuqdooda saxda ah, isagoona xusay in booliiska haba yaraatee aanay jirin meelo loogu ashkatoodo. qofkana waxa maxkamadda la keenay isagoo qareen la kulmay.
qareenkana wax loo geliyo kaliya inuu kula kulmo maxkamadda marka qofkii fursad ku difaaci karo oo uu ku soo wareysto ma helo marka cadaalad loo sameeyay maxkamadda horteeda qofku kama heli karo way booliisku iyo xiraalintu muddo ku filan ayay soo diyaar garoobeen laakiin dibta labaad booliiska Soomaaliland ka jirta waxay tahay ma jirto sharci Soomaaliland oo booliiska qabta ma jirto booliiska Soomaaliland meel looga ashkatoon karo ma jirto cid oversight ama supervision ku leh hadii booliisku wax kugu sameeyo waa bini'aadan awood gacanta ku haya weyn bini'aadankuna waa gafe oo perfect ma ilaahay macsuum kama dhigin meel looga ashkatoon kara booliiska Soomaaliland ma jiro weyn adiga dhexdooda isaga ashkatoonta iyaguna waxay yeesheen dhaqan ah isdifaacis oo qofka hadba taliyaha uu u janjeero mar walba inuu difaaco qofka booliiska waxaan si weyn u bogaadinaynaa maxkamadda sare gudoomiyaha cusub ee loo sameeyay oo niyadsiyo wanaag badan muujiyay saxaafadda intii uu xilka joogay anagoo filayna in saxaafaddu u baahan tahay wax ka badan hal qof oo niyad samaada dadka geysta faldabiyeed isla markaana baxsada ayuu xusay isla markaana warbixintiisa ku soo qaatay marka la waayo in loo soo xidho dad kale oo ay ehel isugu dhow yihiin isla markaana aan shaqul ku lahayn tacadiga uu eedeysan u geystay waxaa jira dad aan loo xidhan fal aanay gelin tusaale ahaan waxa caado noqotay magaalada Hargeysa in booliisku xidhaan hooyooyinka inamada ay dambiga u raadinayaan haddii tusaale ahaan in faldabiyeed ay ku tumaan booliisku waxay soo qabtaan hooyooyin waxaan wareysanay 13 hooyo oo muddo u dhaxaysa 3 ilaa 15 cisho u xidhnaa inankaagii waa dambi galay taasina waxa ka soo jeeda dastuurka iyo xeerarka dalka qofna looma xiri karo dambi aan isagu gelin hooyaduna mas'uuliyadda ma qaadayso inankeeda qaangaarka ah faldabiyeedka u galo waxaa 30 qof Juun 2015 lagu xiray oo la sii daayay Juun 2016 magaalada Ceergaabo iyana 30 qof oo loo xiray qof ay isku reertihiin baa qof dilay oo baxsaday mid ka mid intuu xidhnaa ayuu dhintay intuu ku dhaxanuunsaday jeelka dadka ka soo talaaba xuduudka isla markaana soo gala gudaha dalka ay warbixintiisa ku xusay in si sharci darro dib loogu celiyo wadamada dariska la iyadoon haba yaraatee la marayn qodobada dastuuriga dalka u yaala ugu dambeyntiina waxa warbixintiisa ku soo gunaanaday guuleed dafaac gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan in la ilaaliyo xuquuqda saxaafadda in la tixgeliyo xorriyadda hadalka in dib loogu noqdo qodobada dastuuriga xaq u siinay qofka ku sugan gudaha dalka inuu magangeliyo ku heli karo dib loogu celin karin si sharci darro wadamada dariska in la helo meel looga ashkatoodo ciidamada booliiska iyo in xabsiga laga sii daayo ugaas Cabdiraxmaan Diiriye oo muddo ku xidhan saldhigyo ku yaala gudaha Hargeysa ay warbixintiisa ku soo gunaanaday ilaalinta xuquuqda aadamahu waa mid ka mid ah tiirarka si mugle looga ciiseeyo caalamka intiisa badan balse suuragal ma noqoto in wadamada kala duwan ee caalamka sidii la rabay ay uga hirgalaan Soomaaliland walow aanay ictiraaf buuxa ka helin beesha caalamka balse waxay qayb ka tahay wadamada ay xilligan ka dhacaan tacadiyada sida ay warbixintooda ku sheegeen xaruntan xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Soomaaliland oo Faysal Maxamed Aadan Faysal Fifa TV-ga caalamiga ee Soomaali Cable magaalada Hargeysa.